السلام عليكم صاحب يالكوسو دوادا warbixin xiiso leh oo qusaysa dalka Cameroon wadanka Cameroon oo loo yaqaan jamhuuriyadda dadka ee Cameroon waxa uu kamid yahay wadamada ku yaala qaaradda Afrika waa wadan ku yaala ama saddex galbeedka iyo bartamaha qaaradda Afrika waxa uu xuduud la leeyahay wadamada Nigeria Chad Central African Republic ama jamhuuriyadda Afrikada dhexe Equatorial Guinea Gabon iyo Democratic Republic of Congo dalka aynu ka sheekeynayna ee Cameroon waxa uu xorriyadda ka qaatay Faransiiska oo guumaysan jiray kowdii bishii January sanadii 1960 waxaana madaxweynihii u horeeyay ee dalkan yeeshay la oran jiray Ahmadou Ahidji caasimadda waddankani waxaa la yiraahdaa Yaoundé halka magaalada ugu weyn waddankani lagu magacaabo Dowlad oo ka ballaaran caasimadda dhanka dadka iyo dhulkaba tirada dadka waddankan u dhashay waxaa lagu qiyaasaa 22 milyan oo qof calanka waddankani waxa uu ka kooban yahay midabada cagaarka casaanka iyo hurdiga oo siman dhexdana ay kaga xidhan tahay xidig shan gees leh oo hurdi ama jaallo ah waddankan ayaa kulaala qaybo ka mid ah gacanka Guinea iyo badweynta Hindiya dhanka luqadaha rasmiga ah ee waddankan looga hadlayo waa luqadaha Ingiriiska iyo Faransiiska waxaase jira ku dhawaad 20 luqadood oo waddankan looga hadlo dhanka diimaha dadka waddankan ugu badani waa Masiixiyiinta Muslimiintuna bulshada waddankani waxa ay ka yihiin 24%. Islaamka ayaa la ayiidsan yahay inuu waddankani soo gaaray ama soo galay ugu horreynba bilowgii qarnigii 19aad dhanka dadweynaha ama qoomiyadaha dalka Cameroon waxaa lagu qiyaasaa inay ka jiraan dhowr qowmiyadood waxaase ugu badan qowmiyadda loo yaqaan Cameroon Highlanderiska oo bulshada waddankaasi ka ah 31% halka ay ugu yartahay dadka aan Afrikaanka ahayn oo ay ka yihiin ayaguna 1%. dadka waddankan degaa ayaa loogu yeeraa ama loo yaqaan Cameroonian baaxadda waddankani ayaa lagu qiyaasaa 475,442 kiiloomitir oo square lacagta dalka laga isticmaalay waa Central Africa France waxayna la qaab tahay lacagaha laga isticmaalo bartamaha qaaradda iyo qaybo kamid ah bariga Afrika cunooyinka ay kamid yihiin galeyda masagada digirta bariiska iyo noocyada qudaarta ayaa laga isticmaalaa waddankani madaxweynaha dalkani waa Paul Biya halka ra'iisul wasaarahana lagu magacaabo Philomene Yang dhanka waxbarashada Cameroon waxa ay dhanka waxbarashada iyo amniga ka siman yihiin wadamo kamid ah qaaradda Afrika gaar ahaan wadamada bariga Afrika iyo wadamada Central Africa